السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوا جنالكي مركلا نيغو أحفاظو هداد ميشان كو عصوبتها كسو دوا هداد ميشان هوري وجرت كسو دوا قعم فرن اي قلبي سافئه ايان كوسو دواي هدو إلهي يراهدو maanta sidaad u jeedin tabkeena wuxuu yahay waxaan ka hadlaynaa maanta bully waxa waaye especially hataa bully ma aha wax ilmaha kali ilmaha risk is bully gareynaa okay meeshaan waxaa soo baxeen dad waaweyn oo is bully gareynaa dad waaweyn oo is dagaalay dad waaweyn oo wax iska sheegay soo maanta waxay ku socotaa sheekadeena insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo mawduucaas harta waxaa jirta sheeko oo bariyahan ama maqlaaye oo gabdho u haay isku dagaaleen oo gabar mindi loo qaatay oo gabadha mindida loo dhacay oo gabadha isbitaal ku jirto oo gabdhihiina labana la xiray labana raadinaya wallahi wax kama ogi harta wixii ka dhacay qofka binaadamka inuu runta sheego ma fiicno harta meeshaas wixii ka dhacay aniga wax aan ka ogahay oo Ilaahay abuurtay malaha all I know is ina gabdho is dagaaleen gabar oo ilmaheed ka soo qaadanaysa deekarka ina oo gabdho kale mindi u qaateen ay dhaawaceen iyada isbitaal ku jirto laba gabdhoodna la xiray kuwa kalena raadinaa inay 2 iyo 4 iyo 5 inay ka badnaayeen u maleynaa hadana been sheegeenin marka duu Ilaahay gaarsiin harta waxaan rabaa aniga ahaanteedii Faaduma ahaanteedii inaan iska hadlo ani harto waxaan ahay harto sida idinka hadaa ay taqaani waa ay taqaani hadaa ay aqoon ima lihid okay ani waxaan iska ahay daacad I know dadka qaarkiis waxay dhahay daacada aha iska dhehaysa laakiin daacad mid wallahi billahi okay Ilaahay wajigiisa ku dhaaranaya ina idin dhaartaa ma aha wax qasbay ma laha laakiin ani waxaan iska ahay daacad ani waxaan jeclahay wanaag ani waxaan jeclahay dadka inay isku soo dhawaadaan isku imaadaan oo la wada heshiiyo oo raali la wada noqdo wax kasta la qabsado laakiin adduunka saas ma aha everybody is different so harta gabdhaha dhibaatada gaarsiisteen harta waxa waa Ilaahay waxaan aga baryayaa inuu u soo fududeeyo gabadha xanuunsan inay gabadha oo dhaawac gaaran Ilaahay waxaan aga baryayaa insha Allah Ilaahay inuu ka caafiyo oo awlaadeeda inay u soo noqoto in kala hataa ma oga ay u soo noqoto insha Allah laakiin dhibka jira waxa ay gabdhahan Soomaali mise hooyooyinkeena Soomaali mise naagooyinkeena Soomaali waxa why okay neefti aan soo noqsado harta so marka hadii shaydaan meeshaan uu jiraa okay shaydaan wax la dhahay uu jiraa bini aadamkana qaarkiisna ayaga shaydaan isku ma fahmaysaa hada ani meesha sheekadaas ka dhacday meesha ani deganahay ma meesha ani deganahay taa wallahi drama ka socoto sana la yiri kana la yiri san bay dhahday kan bay dhahday waxaas dhan waa laga fiican yahay okay adiga hadaad oo dumar aad tahay okay oo hadaa ilma haysatid oo aad guri degan tahay oo nin ku qabo oo goormay haysaa tell me okay kama hadlooy gabadha dhaawac la gaarsiiyay kama hadlooy waxaan ka hadlooyaa just gabdha lay ka hadlooyaa okay dhibaatooyinka haysato Soomaalideena community-geena dhibaatada haysato waxay tahay waa qabiil iyo waxaas labo waa waxaan dhahday iyo hiblaayaasaan dhahday waxaas inaan iska dhaafnaan oo fiican okay waxaas inaan iska joojino oo iska dhaafno anoo fiican sababtoo waan rafaadnay waan silacnay okay wadankeena dhismila anaka teenan haysataa anaka nimankii Soomaalina xumeeyeen anakiya maxaa dhahay wadan qurbo joognaa anakiya hooyooyin qaarkood jira oo single mother iska oo gabadha hadda la sheegayo kale waxa la dhahay gabadha single mother ay ahayd ma fahmay single mother ay ahayd waa ogtihiin single mother wadamadan qurbada dhibaatada haysato ya marka hadiiba reer leedahay ilma aad qabtid ninna ku qabo intaasaba ka badanbo intaas wallahi ka badan waxay intaas kaaga badan tahan ku sheego hadii subaxda aad soo kacdid oo salaadaada dukatid oo ilmaha quraac siisatid oo ilmaha qado u karsatid oo guriga hagaagsatid oo cibaadaysatid oo ilmaha waqti la qaatid oo ilmaha wax alla xeer u sameeysid oo adigna sada istagagalis adigna sada inta isku ilowday marka gabsaar ina qaadatid bixaysid soo wareegaysid oo maxaa la yiri hadal soo wareegaysid why ina gabsaarkaaga armaajadaada ku ceshatid ma musqusha gashid oo soo qabaysatid oo korka loosh inaad marsatid
cambuur nadiif aad gashatid tv-ga geyso tv ma qabtiin gurigiin tv ma yaalo I know dad badanaa ka xanaaqa video dadna way soo caayin doonaan but guess what I don't care that soo caaysiin meel ma iga dulaalmayso I don't care that xun iga soo sheegtiin inta qafood oo meesha maasha Allah harto dad xuma ba igu xariiro inaan dhaho ma ba aha wali soo caayna because dadka ani igu xariiro oo janaalkay ku jiro dad fiican oo Ilaahay ka cabsoonayo waa fahmay just an example la idin siino inta adig wareegi lahayd oo ilmaha ka wareegi lahayd misninka ka wareegi lahayd guriga ka wareegi lahayd guriga iskaaga dhex jir bax soo danays anima ku dhahoy 24 hour ilmaha ininka ka dab orod ku dhahoy adiga nafsadaada waqti la qaado adiga naftaan oo Ilaahay kugu amaaneystay waqti la qaado musqusha gal you know lugaha geedaha lugaha lagu dhaqo soo gado may saloon aad lugaha soo dhaqo shopping soo sameyso coffee iska soo cab hal gabar iyo laba gabar oo ku kalsoon tahay kugu filan ayaantan waxaa socota sheeko la dhahayo group okay gabdhii group ina isku wataan markaas mid kala talinayso oo dhehaysa ma jirto waxaan waxun waaye walaalayaan sameeyay naga dhaaf mid kala xeelada soo bax you know waa laga fiican yahay haddii dhalinyaro iska tahayna oo ilmaana haysanina oo nin uu ku qabina ka faa'iideyso waqti haysataa because let me tell you something mar haddii xaas aan qatid guri aad ninku arooso oo ilma aad dhashid trust me you're not going to have a lot of free time helaysid waqtigaaga dhan wuxuu noqonaa limit waqtigaaga wuu xisaabsan yahay because dad kale noloshaada ku jiraan oo rabaan oo ku baahan adiga inaa wax u samaysid so inta hadda waqti aad haysatid haddaan gabar tahay ka faa'iideyso wax baro college aad wax noqo okay ani waxaan jeclahay gabdhaha Soomaalida wallahi Snapchat badanaa markaan ku arko gabar Soomaali oo lipstick soo sameyso mis gabar Soomaali oo eyelashes sameyso oo gabar Soomaali oo magaceed ku qoran yahay trust me wallahi waa ku farxaa ma ka xumaado okay gabdhahan Soomaali waa inaan isgarab qabanaa waa anak inaan isgarab istaagnaa hadda anak isgarab istaagan oo isgarab qabanin nimankiina dhulkaleena sii gelinayaan you think ninka inaan xishmeenayo anaki dumar ahaan hada is xishmeenaynin nama xishmeenayo so walaashay macaani qaaliye qeyr Allah ku siiyo gurigaaga iska joogo awlaadaada reerka iska dhaq hadaad haysan awlaad reerna Ilaahay ha ku siiye banaankaaga iska mar wadan shisheeyaan joognaa wadan sharci lahaan joognaa wadankeena oo la isdhameenayo inaan baangado la isku qaato dhac la siinaa hadan la kala faatixaysanaa diil iska qaadana ma joogno wadan waxaan joognaa oo anaga waxba aan ka ahayn okay wax ma kan yihiin wadankan Soomaalideen waxaan ka nahay malaha because waa ogtihiin inaan meeshan wax ku sheeg dhamma wax walba la socotiin anagoo awlka hore bul hal ku taagneen haddana oo dagaal ay ku sii darsano kala celcelis amniye aan isku qaadano oo sharci la'aan kugu dhacdo maxay ku taraysaa wadankan waxa u imaanay oo wadankeen dhibaato naga soo waday just be real okay real idin naqana wadankeen dhibaato naga soo waday okay maanta wadankeen inuu noo dhismo oo noo fiicnaado aan ku naqdo adduunka aan jeclahay wadankeen dhibaato naga soo waday wadan qurbaa imaanay meeshana lagu keenay sharciya lagu siiyay waxa lagu dhahay shaqayso sharciya lagu siiyay shaqaysaa lagu dhahay nafsada meel ka soo saar school free lagu siiyay kaar caafimaad free lagu siiyay maxaa ku daaray maxaa rabtaa hore u sii soco sheekadan gadaal loo sii socdo aan iska dhaafno horteena u sii socono aan iswaanino aan wax isku sheegno gabarba gabadhay wax dhaanto waxa u sheegto gabarba gabartay wax u faa'iideyn karto ha u faa'iideyso hooyadii kale waxa u faa'iideyn karto ha u faa'iideyso aan isgarab qabsano aan naqano group gabdhaheena Soomaaliyeed aan naqano group anakiya wax iska sheegayno anaka waxa leenahay arag see u taalo anaka waxa leenahay arag u dharkay badato anaka waxa leenahay ninkeeda saan u yeela aan stop gareyno okay aan support gareyno ani support garey ani aan ku support garey walaasha gabar Soomaaliyeed oo muslimeed markaa aragtid oo dhibaataysan aragtid garab qabo ha ku sheekaysanin ha xamanin waxa ka sheegin garabkeeda istaag garabkeeda qabo sida adi bari mid kale adna garabka ku qoto isku dadaysano because gabdha yar ilmo yar guriga noo joogo oo na fiirsanaya anaka fiirsanaya anaki hadii oo iscacaynayno anaka is qabsanay anaka is dagaaleyno you think hadhow gabdhaheena markay soo weynaadaan they just gonna do same waa shay wareeganaya saas wareeganaya okay because ma rabna inaan istaajino woo socotaa sheekadan goormay socotay mar hore ay socotay mar hore
ani ma lii dhalay markii la iska qabsanay oo la isfificla wax la isku sheegay ilaa imaanta way socotaa so ani waxa maanta video usoo fadhiistay aan rabo inaan aga hadlo please fiirso video ilaa i dhamaadkiisa hadda intaan soo gaartay please waxa hoos ku soo qoreysaa saan ku ogaado ina videogan aad ka faa'iideen insha Allah waxa ku soo qoreysaa aamin ilaahay inti muslim oo adduunkan ku rafaadsan ilaahay subhana qadir inuu u fududeeyo aamin ya rabbi insha Allah inta dhibaataysan inta baahan inta ilmo ka maqan yihiin oo aniga ku jiro ducada anada isku daraa iska bixinay maxaa dabaal ma ahay intii oo ilmo ka xiran yihiin intii qaacunmo ka xanuunsan yihiin intii dad waaweyn xanuunsan intii adduunka muslimiin ku rafaadsan Allah subhana qadir rafaadka ka qaada waxa isku sheegi karnaa isku sheegno haddii hadalkan aan ka xumaateen iga raali naqda xumaata ma ka wadi it's just you know marmarka qaarkiisa you have to inaa hadashad waa ku fiican tahay intaan wax calooshaada aad ku haysan lahayd marka qayr caafimaad ay nirajay asxaabteedii qaaliga ah please hadda aragtid gabar Soomaali mis hooyo Soomaaliyeed dhibaataysan please garabkeeda istaag garab qabo waa ku bariyaa sida adi ilaahay subxaan qaadir barita adna ku garab qabto insha Allah haduu ilaahay yiraahdo qayr caafimaad ay nirajaynayaa asxaabteedii aad u mahadsantihiin taageeraysiin comment-ka iyo soo qoraysiin sida video-yaasha aga heshiin aad u mahadsantihiin qayr caafimaad ay nirajay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh